magaalada Quebec City masaajid ku yaalo waxaa ku tukanayay dad badan oo muslimiin ah nin kaligiis oo shakhsi ah baa galay masaajidka xabad buu dadkii ku furay wuxuu dilay 6 qof wuxuuna dhaawacay 5 qof dadkaasna wuxuu xabadda ku furay ayagoo salaad tukanaya marka arintaas aad baa looga murugooday community-ga muslimiinta aad bay uga murugoodeen community-ga oo non muslimka oo kala deganna sidoo kale aad bay uga murugoodeen arintaas waa la wada cambaareeyay ra'iisul wasaaraha waddankan Justin Trudeau uu cambaareeyay siyaasiyiinta kale oo xisbiyada kale mas'uulka ka ahna way cambaareen baarlamaanka dhan waxay isku raaceen arintaas inay ahayd arin oo argagixisada ah oo lagu sameeyay community-ga muslimiinta number 1 number 2 ra'iisul wasaaraha iyo aniga shalay waxaan tagnay janaasada iyo magaalada Quebec City si aan ugu muujino dadka muslimiinta xagga degan in wixii ku dhacay inay ahaayeen wax aad u xun oo u foolxumo badan laakiin in dawladooda ay la jirto ayaga inaysan kaligood ahaan in Canadian-ka dhan dawladooda iyo ummadaha kala dhan oo diin walba ka kooban inay la taagan yihiin inay garabka la taagan yihiin inay taageeri doonaan inay murugtooda la qaybsanayaan wixii u qaban karaana inay u qabtaan arinta kale aan rabay inaan ii muujiyo waxa weeye 6 shakhsi oo dhintay waxaa kaloo jiro 5 shakhsi oo dhaawacmay oo isbitaal hadda ku jiro oo Quebec City dadkii dhaawacmay 6 ahaayeen waxay ka tageen 17 caruur iyo 6 xaas oo maantay zawjkooda nimankooda ay ka dhinteen ilmihiina waxay u baahan yihiin in la taageero ilmahaas marka iyo xaasaskaas iyo reerkaas dhan oo dadkooda hadda maantay dadkooda ka dhinteen waxay u baahan yihiin in la taageero dad badan oo muslimiin iyo non muslim ah oo Canada degan waxay siiyeen donation qarash bay ku bixiyeen inay taageeraan dadkaas markaad ka fikiraysiin arintaas oo Quebec City ka dhacday waxaa fikradiina ku galisiin in reerahaas oo maanta dhibaatooyinkaas la kulmooday inaad taageertiin inaad maaragtay mucaawinaad iyo sadaqo siisiin arinta kale aan rabay inaan hadalka ku soo xiro waxa waaye maalmihii la soo dhaafay baarlamaanka markuu hadlay dawladda markay hadashay ka bacdi xataa dad caadi ah oo shacabka Canadian-ka ka mid ah oo muslim iyo diimaha kale ka mid ah way soo baxeen waxay muujiyeen inay arintan aad uga xun yihiin aad iyo si cad bayna waxay u taageereen community-ga muslimiinta waxay kaloo sameeyeen jimcihii la soo dhaafay oo shalay ah masaajidyo badan oo ku yaala waddanka Canada dhan oo Toronto ay ka mid tahay bay agagaarkeeda istaageen dadka oo muslimka ahaan oo Canadian-ka ah si ay u difaacaan walaalahooda muslimka ah si qofkii ka walwalsan security maadaama dadkan lagu dilay masaajid dhexdeeda waxay ka walwaleen Canadian-ka kale in muslimiinta ay arinta inay ka baqaan inay ku tukadaan masaajid marka waxay sameeyeen salaatul jimca markay socotay masaajidyo badan waddanka dadka kale waxay ku hareereen masaajidka si ay u muujiyaan inay u hiilinayaan dadka muslimiinta taas marka waxay ku tusinaysaa waddankan inuu waddanka muslimiinta inay ka mid yihiin waddankan in loo aqoonsan yahay inay xaq u leeyihiin waddankan inay degaan inay xaq u leeyihiin inay waddankan ilaahooda ku caabudaan inay xaq u leeyihiin inay waddankan masaajidooda ku dhistaan inay xaq u leeyihiin waddankan inay masaajidooda ku tukadaan ayagoo si nabad leh uga qayb qaataan salaadahooda iyo waxyaalaha kale oo maxaa diinta islaamka ay farayso marka arintaas baa rabay inaan nagala tago waxaan niigu imidna waxaas ka mid ah inaan nii muujiyo dawladda Canada maanta waa dawladdiini maadaama hadda aniga iyo gabar muslimiin ah aan fadhino golaha wasiirada taas waxay ku tusinaysaa waddanka Canada inuu annaga noo furan yahay inuusan diinta islaamka ka soo jeedin in annagana aan nahay dad Canadian oo waddankan xaq u leh inaan ilaahayna caabudno inaan nolosheenna iyo familkeenna iyo fursadaha dadka kale ay leeyihiin inaan yeelano. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.